السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسر وهذا إذاعة الصومالية إيرش ميديا مانتي وحا فرصة قاري سي أما أن لجوجا حفيزك أن جوجا حفيزك شعب الرسالة ظاهر فرح وكل يهي مسجد كوين دوبلين ماسك أن سببتهن مدة وحا كجيرني لوك داون أو عذركي كورونا فيروس أيا ميل والبا أما دون كبا قصي إن شاء الله تعالى أن بري waxay noqon doontaa markii ugu horeysay ama phase 3 oo la furi doono masaajidada ama meelaha lagu cibaadeysto oo in muddo ah ay xirnaayeen waxaan rabaa su'aalo yar aan weydiiyo Sheekh Cabdirasaaq Daahir Faarax Sheekh salaam alaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sheekh waxaa kaga mahadcelinayaa waqtiga qaaliga ah ee aasisay Soomaaliya Irish Media ومحسنتين جزاكم الله خيرا. aad baan ugu faraxsanahay walaaladey Irish Media soo dhawaada waana ku mahadsantiin insha Allah taala booqashadiina gaabaneed noogu timaadeen masaajidka جزاكم الله خير. ما شاء الله Sheekh shaqo badan baa hayseen oo masaajidka furitaankiisii ayaad ka shaqeynayseen su'aasheedu waxay tahay masaajidka waa la furayaa بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى سي يعني dadka intooda badan ay bala socdaan masaajidku 3 bilood iyo dheeraad ba waxna يعني oo sababaha uu xidhnaa oo ay ka mid ahayd yani dawladda waddanka gabiga gaba xidhay iyo de sababtu ay cudurka weyn ee hadda COVID-19 ka dadka intooda badani dhibaatada yani run ahaantii soo gaarsiiyay qaarkoodna ay u xanuunsanayaan qaarkoodna ayba ay u dhinteen intii dhintay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo naxariisto inta noolna إلهي سبحانه وتعالى هكذا ويو أن هرتو بريتولا إن شاء الله تعالى أو سنين أي إن شاء الله تعالى مساجد كلا فريا هدي إلهي له. إن سؤال شلون شيخ قف كمسلم مساجد إيمانية كسوت كنا محل وباهية ماذا مولي عذر كيجرو. أن روحانتي مسجد كا هرتا وحلا فريدونا 8 دقيقة كهر بالفريدونا آذانك. يعني أنت يعني أدينك 10 دقيقة كور بالفريدونا مركل الفرو كنتم قف باكوت كنتونت كنتم كاقف وكل يوم بمساجد قاضية وديش أنت سنة لو قال لي هاي إلا أنت إن شاء الله تعالى وحيسك بدليا قف وحيالها الله ربو أن وحويان إنه رانتي ماشي ويصدر تيدا الفري مايو وقف وين ويسلي يماتو سوى ويسقب وين يماتو وحا كلا قف كلا ربو مساجد كامل يكسوت كنيا in uu wato maxaydanay salli uu ku tukado waxa kale isagana laga rabaa in uu macnaheedu marka uu imanayo inuu yani ama hore u yimaado ama hadii uu gadaal ka yimaado masaajidku waa xilay wal xilay kontonka qof mar hadii ay tukadaan marka waxyaalaha ugu muhiimsan ee laga rabaa waxa weeyaan in uu qofku la yimaado sijaadada ama maxaydanay salliga uu ku tukanayo talabaad iyo inuu weyse qabo waayo weyse halkan kagama soo horeyso way xiran tahay meeshaas inuu jeelka gacmaha soo marsado yani jeelka waxa weeyaan masaajidka hortiisa taala oo halkaas insha Allah taala uu ku marsan doono hadii Ilaahay yiraahdo oo loogu diyaariyo taas insha Allah markuu masaajidka gudihiisa galo kitaabka inuu taabto iyo loo gori lama ogola kitaabka yani masaajidka gudihiisa qofka haduu mar galo taaban maayo kitaabka waxa la rabaa isagu inuu wato kitaabkiisa way bixrin yihiin meelaha wal xilaya mana furna maantii laakiin qof walba mobile buu wataa daway fududahay kitaabkiisa wuxuu kusoo macnaheedu dejisanaya mobilkiisa halkaasuna ka akhrisanaya dii markaasi uu fursad u helo uu quraan markaasi uu ku akhri karo kawana qofka salliga soo ilaawo ama mask oo af xirkiga ka soo taga asaga dib loo celinaya maya loo celin maayo laakiin waxa weeyaan halkan waxa yaala oo run ahaantii aan u diyaarinay يعني قفكي مركاسي آن وذن لكن ولا له وحنو يعني رهانتي وشاقنا إن اللي يمادان إيوه مد أيوه إسكاليه صلي الصلاة وكنت كان ينسقوا لي ماد لكن هذا يبرد عضو ومركاسي ومعنيه ولا يمواي أما وصي اللوبة ما مسيس صدفة ولا مفلان معنيه مساعد كده عتي يسوي ماده أو رو مركاسي أن وصلاة دي وقت جدي والله كل ما أن وحلا جاي أبا إن معنيه وصينا إن شاء الله تعالى لكنse waa wax kooban
oo wax macni ku filan maaha dadka oo dhan yani waxaan dadka walaalaha u sheegi lahaa khaasatan soomaalida inay iyagu sijaadadooda iyo maxay ahayn de salligaas ay ku tukanaan iyagu ay la yimaadaan masaajidka gudihiisa marka ay galaan dadku masaajidku wuxuu leeyahay calaamadaha loogu talagalay uu qofku ku tukanaya oo loogu talagalay qofka inuu qofba xoogaa yani 1 mitir wax u dhow inuu macnihi yani u jira inuu ka fogaado mayl 1 mitir baa yani ila hadda iyo xoogaa 1 mitir iyo xoogaa wey 2 mitir maaha sida yani qofku markuu masaajidka soo galo calaamadiisa waa inuu ku tukadaa sijaadadiisa waa inuu halkaa dhigto halkaan uu ku tukado yani salligiisa markuu tukado oo salaadii waayo waa la aadaami doonaa marka la aadaamo markaaba waa la tukanayaa marka la tukado qofku waxa weeyaan toos bay dadka u bixi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaana loo baxayaa qof waxaa kaloo macni qofka masaajidka halka uu ka soo galo markuu soo galayo waxaa laga rabaa inuu la yimaado kabaha yani baag yar uu ku qaato ama bac yar uu ku sito bacda yar buu ku ridanayaa deetana hore uu sii qaadanaya sidii macnaha walba Soomaaliya war ku tukan jirnay sidaasi sidii caadiga ahayd u marayn maayo Soomaalida in arrintaas dhibayso Soomaaliya kabaha xad jiray meesha kabaha xaday may waxa weeyaan isagoo laga xaday mar runtii waa lagu ridaa bacda waa lagu wax la ilaalinay masaajidka la ilaalinay nadaafadiisa ee inta badan lagu ilaalin jiray ma sha Allah marka intaas laga rabaa qofku wuxuu bacdaas ku ridanaya kabihiisa deetana hortiisu dhiganaya uu xidhanaya wixii soo dhan la baxaya sax si uu macnaha hadhow toole masaajidkana ayna waxba u gaadhin يعني ونو إلى مساجد كنا ذا في دي سي وحيد ولا ما لقى نعم مركا صلاة الجمعة أيضا كورن صلاة الجمعة يدا إلى هذا وحق أنا كمان نقارين لكن يدا إن شاء الله تعالى ونجهر دونت إن شاء الله تعالى جوابت هذا وريق أنا كمان نقارين وانو كوض الشيء سنة قاب كان سنين لهين لكن إلى هذا وحق أنا وانو قارين ما ترتو وحنا أجينا سنقون دونتو معني هذا شنطة سرادو سنة تكنينا هرت تجايبيننا هذه أسدي أنا قلت هرجع لي أيضاك رولس كأيوقاتان إن شاء الله تعالى وحناجنا إن الصلاة دي جمعة هذا نتكلم لكن إلى هذا وحق أنا كمان نقارين تضرب إن شاء الله تعالى يتكلم شيخ مسجد كوقت هي ومسجد أدوين ودبل موسكو يعني ذلك ترى اللي أقولي هنا وكنت قف هذيك ورن اعتماد لحظة محل زمانية haddii tiradii intii loogu talagalay in ka badan ay yimaadaan intii hore u timid unbaa macnihii tukanaysa inta kale way sugi doonaan waayo albaabka waa la xidhaya marka intaa la tukado kadibna waxa weeyaan dee masaajidku bannaan buu leeyahay iska tukan karaa haddii ilaha yidhaahdo haddii kalena fursad loo helo oo intaasi markay baxdo ay socoto ay iyaga insha allahu tacaala waa uma maraynayo inaan dee fursadda yani masaajidka loo diidi doono lakin dabcan way tukan doonaan haddii ilaha yidhaahdo saa ognahay masaajidda badan baa jira oo masaajidkan uu garab siiyo oo masaajid dabal Moscow caawiya mawlacyo ayaan dhahnaa Soomaalida masaajidada yar iyaga waxaa ugu talagashay runtii yani aimada way fadhiisteen oo yani dalkan Ireland wayna ka wada hadleen waxay sameyn lahaayeen qof waliba uu og yahay wax lagu soo heshiiyay waxaan hadda macnaheedu yani halkan ka sheegayno waa wax la isla og yahay oo wax laga soo wada hadlay wixii la sameyn lahaa iyo sidii macnaheedu dadka salaada ay u tukan lahaa ugu dambeyntii sheekh dadka ku hadla luqadda Soomaaliga waddanka ku nool ama waddamadayni ku nool ama meel kasta adduunka ku nool maxaa kula talin lahayd runtii waxaan horta kula talin lahaa inagu Soomaali baan nahay Soomaalidana waxa weeyaan dad markay is arkaan aad isugu farxa laabtiis geliya macnaheedu oo qaarkood baan ay aaminsaneen bayna waxaan jiraan oo dad xataa u sheegto meelaha qaarkood oo war ma jiraan waxaas inay jiraan in cudurkaas jiro waa la ogyahay waa wax cad laakiin waxaan kula talin lahaa naftaadana ilaali qofka kalena ilaali haddii aad xanuunsanayso ama xanuunkaasi macnihi kugu dhaco ilaahay nooma keeno gurigaaga fadhi oo sida waxaad raacdaa qaabka ay ugu talagaleen waddanka aad joogto ku soco إن شاء الله تعالى وحب بإذن الله عز وجل كاسو قاري مايا ضدك كلنا وحقارسين ميسي إن شاء الله تعالى وحب مهم إن أينو تحضرنا ومعنيها أينو قادرنا تحضر كينا إن شاء الله تعالى ما شاء الله يعني الشيخ عبد الساق ضاهي الفارح إلى آخر قصيو داود الواحد داود يستعمل برنامج قاسة أو تلك الله إن بل عن الشيخ عبد الساق عن سؤال كويدينو maadaama masaajidka la furay beri qaabkii ay dadka u wajihi lahaayeen ama ay
masaajidka isku daaqsiin lahaayeen maadaama shuruudo ay soo saareen ama dowladaba ay tiriba waa in labada qof ay isku jirsadaan in 2 mitir ah ama 2 mitir iyo bar. aad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.